hadda haddii aad adigu rabto inay garbahaagu ay dhismaan oo hadda garbahaagu aad u yaryar yihiin aniguba markaan caatada ahaa garbahaygu way yaryaraayeen wayna igu adkayd inaan garbahayga aan dhiso si garbahaagu ay u dhismaan uma baahnid inaad qaado miisaan culus iyo biro waaweyn ee labada waxa muhiima saad birtaad u qaadaysaa inay sax tahay marka hore haddaba adigu jimicsigan samee si garbahaagu ay u dhismaan oo jimicsigan wuxuu taabanayaa garbaha qayb walba intaynaan jimicsigan u gudagelin marka hore waxaa muhiim inaad adigu soo qaadato miisaanaad qaadi karto waayo saaxiibka ama saaxiibada jiimka kulama joogto ama kulama joogo maalin walba oo way imaanaysaa maalimaha qaar inaad keliya aad timaado markaad jimicsigan haddaba samaynaysaad ee aad saad u soo fadhiisato dhabarkaaga kursiga inaad ku dhajiso mar labaadka markaad birta aad qaadayso in lugahaaga aad ka qaado si energy badan aanu kaaga bixin oo kor markaad u qaaddo birta oo aad kor wada geyso si wada jir ah waxaana aad muhiim u ah jimicsiga markaad samaynayso in labadaada gacmood ay wada socdaan oo ay isku dheelitirnaadaan haddii aad dareemayso inuu jimicsigani adag yahay khaasatan markaad keliya aad tahay waxaad labada samayn kartaa jimicsigan oo mishiin ah oo markaad saad u soo fadhiisato aad muhiim ay u tahay gacmahaaga inaad gudaha aad soo geliso kadibna kor aad u qaado mishiinkan wuxuu kaga fudud yahay mishiinkan uma baahnid inaad ka fikirto inaad gacmahaaga isku dheelitirto sidoo kalena birtu way ku caawinaysaa markaad kor aad geynayso waxaana aad muhiim u ah inaad markaad kor geynayso birta soo celinaysana aad control aad ku hayso si garbahaagu ay u dhismaan